يونس على النور ayuu uga waramay dhacdooyinkaas يونس هذا يا الله نحرسنا ليك وزير كريمها gudaha amaanka qaranka jeenaysa lagu tukaday waxa ku tukaday madaxweynaha dowladda ku-meelgaarka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo xubno fara badan oo ka tirsan baarlamaanka iyo golaha wasiirada isagoo ku yaala xarunta madaxtooyada hadda waxay la joogaan qaar kamid ah xildhibaanadii iyo wasiiradii ka qayb galay jeenaysada waxa kamid ah hadda ii dhow xildhibaan arrintani maxay dhalin kartaa isla maxaa ka iman kara falkan wasiirka arrimaha gudaha iyo amaanka qaranka in la qarxiyo gurigiisa loogu tago arrintan maxay sababi kartaa maxay dowladda sababi kartaa بسم الله الرحمن الرحيم ودينا استعنا على امور الدنيا ودين صلى الله وسلم على نبينا محمد بعد هذا waxa weeye arintan markuu horeyso waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un min qaali ah oo wasiir ah oo walaalkeena oo maartay muhiim ah ayaa naga baxay waxaan aaminsanahay muslimiin baan nahay inay saacadiisii ahayd sababtu ku dhintayna inay sababtii diri lahayd baan aaminsanahay laakiin waxa xanuun naga hayaa ficilka qaabku u dhacay dad muslimiin min muslima oo aan tawxiid ah oo cibaadadiisa aan garanayno in qof kale oo muslimnimo sheeganayo Soomaali ah oo waliba ehel ah qaraabo ah uu gudbilo in uu gaal yahay xoolaha taasaan naxdin leh oo dib badan tan kale waxa weeye wax badan ma keeni karayso waa la ogaa walba inay nimankaan magaalada ku jiraan wixii ay fal oo sameyn karaan ka gaaraan ay sameynayaan hadda ayaa midkii la wadaa oo dhanka qabriga loo wadaa ambalaas ayuu saaran yahay madaxda dowladda ayaa la socota mar dhow jeenaysa lagu tukaday xildhibaan kale ayaa daydo maxaan dhihi karnaa arrintan maxay dowladda ku saameyn kartaa shaqadeeda iyo ammaankeeda in wasiirkii ammaanka ee gurigiisa lagu qarxiyay bismillahi raxmaani raxiim waa cabdulla saarix irsi cawooley waxaa dhibaato badan leh qof jaamacad dhiganaya ahal hoose ah maxaa yeelay ilma abti iyo ilma eegta ruma ayay ahaayeen falkaas gabadha lagu sheegay waa nasiib darro waayo dadkaya in la sakhraamiyey oosan dadku caadi ahayn ayay arrintaasu caddaynaysaa horena waa loo sheegay waana haynaa arrimaha dadka in la daroogeeyo arrimahaas fulinaya sidaa darteed waxaan leeyahay masiibooyinka dhaca ayaa u keenaya wax qalbijaban ugu keeni mayso insha allahu ahalkana taxsiib ballaarana u diraya hadda waxay la joogaan wasiir yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما